SNM siyaasadeeda koowaad waxay ahayd in shacabka la laayo la kiciyo inay shacabku kacaan oo ku soo biiraan oo la laayo horaan idinku sheegay dejiye ama qaboojiye iyo maxay tahay qarxiye horaan idinku sheegay diiriye iyo dejiye horaan idinku sheegay inuu bolosiga SNM uu ahaa in dadka shacabka la laayo la kululeeyo waa kii hadraawi lahaa daldalaada boqol kala daran isugu xidha walba dahabka ku dhalato يعني دبكا كشدان تبو دعرتا كشدان تبو ليه يعني مركا ad boqol isku xidhaan dacarta ku shidmaysa oo dadka kacaya marka bolisigeed waxa in dadka la laayo totally maanta ninka igula murmaya ee Soomaaliyeed ee ugu leh SNM badbaadinaysa ama waxay ka dagaalantay dadkeedii la laayo SNM siyaasadeedu waxay in dadka la laayo shaqo si ay dadku u kacaan taas ay ahayd su'aasha isweydiintani markii taa bolosigoodu ahaa yaa dembiga leh markayse guryihii iyo dumarkii ugu galeen ee ku soo rideen hubkii wariya dembigeeda loo raacayaa yaa dembigeeda loo raacayaa ummadda Soomaaliyeed waa iga su'aal waayahay kumanaan shacib baa ku dhintay haddaba bal u garnaqa ummadda Soomaaliyeed annagu cadow baanu u tagnay SNM cadow bay u tagtay hub ka soo qaadatay oo xagga dambe ka riixayay askartii bay ku soo duushay inay dalka burburiyaan iyo qaranka Soomaaliyeed bay doonayaan sidaa dhacday maanta haddaba ku hadlaya iyo ummadda Soomaaliyeed aqli aan garanay waxa kaga dhacay maanta la leeyahay lagu akhriyo waa dulmigu siyaad baraka galay iyo ragga ku afgobaadsanaya ee la dulmigu siyaad baraka galay reer waqooyi ama isaaqiisamkii dulmi baa laga galayo idinkaa dulmi ku jira oo cadaalad darro ku jira oo been iyo munaafaqad ilaa maanta igula hadlaya ummadda Soomaaliyeed ilaahay na kula hadlaya oo u sheegay ilaahay been iyo ummadaba garnaq bay u baahan tahay bal kaliya hayla garnaqsado hay soo jawaabaan waxaan kaga baxayaa ummadda Soomaaliyeed dunuubtaanu galay ee qaranka Soomaaliyeed ka galay iyo ummadda Soomaaliyeed ka galay warka raali gelina ummadda Soomaaliyeed dembigaanu ka galay ilaa maanta beenta aanu intaanu qarankii burburin la daba socono ummadda Soomaaliyeed horaan idinka raali gelay ku noqon waxaan kala uga gudbayaa maalintii aan Itoobiya u baxnay waxaan idinku idhi ragga aaminsan eele waana la laayo markaasaanu kacnay oo SNM noqonay oo dawladdii la dagaalanay because waana la laayo khayr ahaan baa naloo laayay bay yidhaahdeen hore waxaan idinku sheegaan caawana ugu celinaya mar labaad waan ugu celinayaa 1981 baan idinka soo qaadeen mar kale idinku celiyo haddaan dhegtiinna waxba maraynin ummadan qalbul marjaca lagu riday 30 sanadood oo aan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ba idinku diso waxa la idinku yiri waa la ilaayay siyaad bariyo dawladii weyn leesay reer bay ugu laysay isaaqiisan bay ugu laysay ayay ugu laysay 1981 waan idinka sheekeeyay dawladdu waxay noo qabatay maanta waxaan ku soo qoray halkan siyaad bare biyo dunuub ka galay iyo dembi dadka reer waqooyiga wuxuu ma ka jawaabayaa markaas siyaad bare reer waqooyi horta marka hore dembi kama gelin reer wax la yiraahdo bay islaayeen reer waqooyi waa konton iyo konton qayb ka mid ah oo qabiil alliance hore saan idinku sheegay oo isaaq la yiraahdo oo laakiin ka kooban dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad kale oo ajaanibaba ku jiraan oo hagbad alliance ku wada jira ayaa siyaad bare iska hor yimaadeen dawladdiisii oo ay ku kaceen siyaasad ahaan ugu kaceen markay sidaa tahay kontanka soo haray waa sool sanaag bari iyo meesha la yiraahdo awdal intaas kuma jiraan tirada hal qofna lagama dilin iskamana hore iman dawladda haddaba mar walba waxaan maqlaa reer waqooyi waa la laayay reer waqooyi waa la xumeeyay reer waqooyi isla baa loo galay waxaad tidhaahdaanuun qabiilka isaaqa la baxaya alliance-ka dhaha ama iskaashatada ama hagbadda dhaha 1981 ama
1981 waxaan hore idinku sheegay qaranka dhan ee Soomaaliyeedba in dhaqaalihiisina lagu wareejiyay gabigiisaba awooddu lahaa dalku ilaa gunagada halka ugu dambaysa ee gunagada la yiraahdo ee kilalka shanaad imika loo bixiyay ama Soomaali galbeed iyo ilaa Qobiyo ilaa Beledweyne feer xoolaha jooga baa la yiri meelaan berbera ahayn kama dhoofi karaan hadalkayga bal si fiican u dhageysta mar labaad meelaan berbera ahayn kama dhoofi karaan dekada Kismaayo waa la soo xiray dekada Boosaasna waa la xiray dekad kale bay fureen markii uu dambeysana waxa la xiray dekadii Muqdisho ninka Kismaayo jooga wuxuu raashin ka soo doonan jiray berbera waa qodobka labaad waxa la yiri xoolaha dhoofaya ee ummadda Soomaaliyeed oo dhami ay leedahay Central Bank wixii lacagta leeba waxa la soo dhigay Burco iyo Hargeysa 90% waxa la soo dhigay Burco iyo Hargeysa jawaan ictimaad baanu soo furanaynay jawaanaan ku qaadaynay waxaanu la tagaynay dhulka waxaana loo qiyaasay neefkii 60 shilin iyo 50 shilin marba wuxuu ahaaba marba uu yar kacayay waxaanu sameynaynay khiyaamo neef laba jiro jidaawi baa la yiri soo iibiya mid gu iyo bar jiray oo ka jaban baanu ku kabaynay kan oo laf dheer waxaanu sameynaynay ariga la yiraahdo iyo ariga la yiraahdo maxay ahayd ariga kilalka shanaad oo dhaadheer oo nogob la yiraahdo iyo ariga oo gobolada dhexe oo dhaadheer laba jir baanu neefka ku sheegaynay laba jir ayaanu neefka ku sheegaynay oo aanu ku soo iibinaynay halka lacag baa ka soo hari jirtay inta gawaadhida la soo saaray la yiraahdo way ku dhimatay na 3 goor baan laba laabi jiray amiin waayay marka xoolahaasi dhoofaan 20% baa hadda waa lacagtii Soomaaliyeed 20% faa'iido baa naloogu reebay bangiga dabeetana maraakiib raashina lagu soo rari jiray waxa guri dhisan inta laga dhisay taas ahayd waxa loo soo shaqatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan soo shaqatay halka la isugu keenay faraga furuta loo furay bila cashuur bas inta idin sheegay oo loogu daray oday iyo habarba tijaar bay noqotay horaan idinku sheegay 1981 ka laga sheekeynayo 1978 baa loo furay markii dagaalka laga soo noqday 1981 ka laga sheekeynayo waxaan baan haysanay warshada sibirka iyo warshada laas qoray baa reer waqooyi ka shaqeynayaan kumanaan qof mareerina anaga haysanay yaa oran kara waa been mareerida dogada tobanka ku ka shaqeynaysay waxa laaliyo waxa u kala sareeya ina aadan dhariba soo xafiiskii weynaa Muqdisho joogay waxa laaliyo waxa ka shaqeeyaba 180 waxa waliba isaaq ayaa kumanaan baa mareerina ka shaqeynay waa koonfur iyo waqooyiba waxaan kaloo su'aal idinka weydiiyay hal qof oo xidhnaa ii soo sheega hal qof oo laga dilay ii soo sheega ninkii uu Ismaaciil Cali Abakar ku marxaati fura beenta ka sheegay ee ina caynaasho guuleed mooyaane ee ay yiraahdeen inqilaab bay wadaan mooyaane hal qof oo laga dilay kuma ii soo sheegaya in badan baa qayliyo allaha ii soo sheega waxa ka kacdeen beenay waa run hal qof kama xidhnayn tuug mooyaane iyo mid akhray mooyaane iyo mid diinta caay mooyaane qof kama xidhnayn siyaasadda kama xidhnayn bal hay sheegaan ragga maanta meelaha ka leh waa la laayo markaasay kaceenow bal hal qodob iiga sheeg oo ay ka kaceen dalka dhanba waa naloo xidhay dhaqaale ahaan baa naloo xidhay dalka dhanba ummadda Soomaaliyeed intii ugu badnaydna waxay uqooyi inay tagaan oo ka shaqeeyaan bay doonayeen waayo lacagtii ummadda Soomaaliyeed iyo baaxmistarigii baa la isugu keenay su'aasha jawaabteedu siyaad bare ummadda waqooyi ma waxbuu u qabtay oo ummadda Soomaaliyeed wuu uga hiiliyay oo wuu uga eexday mise waxbuu ku sameeyay waa su'aasha maanta meesha taala nin kastoo run la waho alla yaqaana oo ilaahay yaqaana oo dhaqan leh oo diin leh oo iimaan leh siyaad bare wuxuu noogu hiiliyay ummadda Soomaaliyeed oo dhanba xaq darro iyo cuqubo
dheeraad wuxuuna siicad dheeraad oo ummadda Soomaaliyeed oo naga sii inta kale waa lala wareegay waxa la iskaashatooyin noqda xoolaha nool annagu munoo daayeen gudidana annaga ahayd Kismaayo basbaas nin la yiraahdo kontraat ku haysto looda ka rari jiray ma reer Kismaayo ma joogaan ma ku jiraan halka reer Kismaayo waa dalka Soomaaliyeed ilaa kilalka shanaad xoolahooda annaga gacanta naloo soo geliyo ka faa'iideyni dadka lacagtii aanu ka soo siisanayna intaanu amaah kaga soo qaadano ayaanu intaanu dhoofina ka faa'iidnay markaasaanu haddana raashin intaanu soo qaadnamaanu dadkii xoolahoodii ugu bedelaynay raashin 3 goor baanu ka faa'iidi jiray neefka shilinna lacagta kumaanu lahayn ee Central Bank lahaa waxaan in badan idin weydiiyay ummadda Soomaaliyeed bal wuxuu siyaad bare nagu sameeyay noo sheega ee aanu ka kacnay hal qodob ii soo qora waxaan live kaga jiraa YouTube-ka iyo Facebook labadaba waxaan ummadda Soomaaliyeed in badan baa dulmina dul saarteen oo la haydeen siyaad bare duqeeyay oo laayay oo reernimo u laayay markale wax ka hadlaya ma arag laakiin anigu ma aamusi karayo nin aamusi karayay maahi oo cuquba iyo dulmi 3 sanadood dhageysan karaya waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaa maanta nahaysa cuqubadii aanu ka galay dawladda siyaad bare wuu noo hiiliyay siyaad bare wuu noo hiiliyay in badan bay cabanayeen oo lahayn wax annaga dheeraadana lama siinin haddaanu cayn ka nahay siyaad bare wuu noo hiiliyay dhaqaale ahaan buu noogu hiiliyo baawar buu noogu hiiliyay ninka dhaqaalaha haysto ma baawar haysta ciruhu ummadda Soomaaliyeed oo dhan intuu xarig ku soo qabtay ayo annaka noo keeno yidhi iyaguna xoolaha dhoofin karaa xoolihii noo dhan iyaga gacanta ka gelinaysaan lacagtii Central Bank kana iyaga lacagta gacanta laga gelinayaa waana wax walba qofna naga muuxda hal qof ha sheegaan barcaar oo siyaasaddu haystay waxay ugu soo jawaabeen hadraawo ninka la yiraahdo si fiican ii dhageysta ummadda Soomaaliyeed ka waxoogaa doore waxay yiraahdeen markii aan habeenkii dhood ka codsaday ii soo sheegay waxay yiraahdeen hadraawo xidhnaa bay yiraahdeen oo siyaasaddu xidhnaa hal qof bay qabsadeen وقروض تدن إلى وان الرجوع وان لا يوان الحين وحي صار شيء هذا راون اللي يراهدو هذا راون هذا وانا قلت شوابي يكون يسوق رايو وحن إذا كون عريان إذا كون حلين يسوق شيء نتين يدو ورحنا وعيقول هذا راوي أبدا قيس مركا مو حنا مركي ضبال حنا وانا الزود هاي برضه وحن لو حنا نرجع شكتي كوي قبل كل تريبه هاي إذا كان عارف دوران كرنت هنا هذا وحده شو جماش لا نقص حياره ليسيا ماشي هيستدك مدى غورغو دغنا waxa ka soo horjeegay guriga martida wuxuu la deganaa oo laba qol laga siiyay gurigii dhiisayga bal dadka si wanaagsan u dhageysta hadaa wal xireba maqashaan anigu inuu isagu yiri war ma hayo waxa dunida loo galiyay hadaa waa dawladda Soomaaliya xidhay gurigii dhiisaygu deganaa guriga ka soo horjeeda isku deeriyihiin oo ay dhiisayga habeen iyo maalin ba sheekaystaan ayaa la dajiyay waxa loo soo kireeyay laba qotiya oo dadkii qaxoontiga inoo yimi aha wuxuu dhaqday digaag beerna waa loo falay labadii qotiga ha dawladda u keentay dhiisayga waxay u falayeen beerta digaagna waa loo soo iibiyo uu ku dhaqday halkaas ku qayli jiray oo fadhi jiray dhiisayga ayuu la sheekaysan jiray bal haddaba ninka idinku yidhi wuu xidhnaa hadraawi halkuu ku xidhnaa car habeen la xidhay hay soo sheegaan wax badan baa laydin qaadsiiyey wax badan baa laydin qaadsiiyey waa iska qaadateen ummadda Soomaaliyeed hal habeen hadraawo lama xidhin qasax dheere mee qolooyinkii joogay dalka Soomaaliya dhiisayga gurigiisa ayuu la deganaa oo laba qolo martidu looda ka soo horjeeda buu deganaa laba qotiina beer baa la siiyay u falayeen digaagna wuu dhaqanayo ka shaqaynayay bal halka hadraawo lagu xidhay loo soo sheego ee la isaga barooriyo ee taariikhda loogu sameeyay ha sheegaan mid kaliya هاي شيء قلني كلي عاوة بين قان قاعدي خلوني ما قاعدو بين قان قاعدي قرون دان أو بين كنول نبي قنيري أمد إذا ماها ما تينو هينا قرون دان
oo been ku nool nebiguna yidhi ummadayda maaha waxa been sheegaa maantaynu haynaa oo aan qof kaliya oo ka joogsanaya beenta ama le ka jooga aan lahayn welibana way ka xanaaqaan runta been baanay ku dhaqan inay doonayaan oo ay ugula dagaalamayaan maxaad runta u sheegtay